todobadii bishii Diseembar ee sanadkii tagay 2016 ayaa 6 dhalinyaro ah waxa ay kufsi u geysteen laba gabdhood oo ka mid ah dadka deegaanka Goldogob ee gobolka Mudug kuwaas oo markii ay falka kula kacayeen ka duubay muuqaal video ay sawirana ka qaaday muuqaalka anshaxa iyo shariicada islaamka ka baxsan ee dhalinyaradaasi ay duubeen ayaa muddo 20 maalmood kadib soo baxay markii ay faafisay sida la ogaaday mid ka mid ah gabdhaha ku nool magaalada oo iyadu ka heshay wiil ka mid ah kuwii falka geystay shacabka Soomaaliyeed ayaa si weyn durbo uga gilgishay ugana xumaaday muuqaalada iyo sawirada anshaxumada ah ee laga soo duubay gabdhahaas ee lagu faafiyay baraha bulshada culimada magaalada Goldogob iyo odayaal dhaqameed ayaa kiiskaas gacanta ku qabtay waxayna muddo dharaandhirinayeen sidii shariicada islaamka loogu xukumi lahaa dhalinyarada falkaas foosho xun ku kacay ugu dambeyntii maanta ayaa culimada odayaasha iyo mas'uuliyiin ka socda maamulka Puntland si wadajir ah ugu dhawaaqeen xukunka dhalinyaradaas lagu riday oo loo maray shariicada islaamka iyadoona waalidiinta gabdhaha la kufsadayna ay goobta ku sugnaayeen goobta ay ka dhacaysay maxkamadeynta dhalinyaradan ayaa sidoo kale waxa ku sugnaa dadweyne fara badan dhalinyaradan oo gaarayay ilaa 5 ruux ayaa xukunkooda u dhacay sidan shirwac jaamac junle waxa lagu riday 200 oo garbaash ah 10 sano oo xariga iyo ganax lacageed yaasir maahir xaashi sidoo kale waxa lagu riday 200 oo jaydala 8 sano oo xariga iyo ganax lacageed ayaan le awle waxa lagu riday 100 jaydala 7 sano oo xariga ganax lacageed yaxye awkal waxa isna lagu riday 100 jaydala 6 sano oo xariga iyo ganax lacageed Cabdirasaaq Xoosh Jibriil waxa lagu riday 100 jaydala 5 sano oo xariga iyo ganax lacageed dhammaan dhalinyaradan ayaa xukunka kadib loo qaaday magaalada Gaalkacyo halkaas oo looga sii gudbin doono magaalada Garowe si ay xabsiga sanadlaha ugu dhameystaan